بسم الله الرحمن الرحيم. مدحوينها علي مهدي محمد، مدحوينيه هوري حسن الشيخ محمد، رئيس الوزراء هوري علي محمد جدي، إمامك دوبابك odayaasha Muuse Suudi, Sheekh Mudey, dhalinyarada, boqorka, ugaaska, dhammaan ka soo qaybgalayaasha, haweenka, waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. salaan kadib, mansabka maanta aan inta ku joogo aan ku hadlayo ma ahan wakiil igaad nin ma aha, nin tolkiisa dhex joogo oo taladooda la wadaagaya ayaan ahay. 23 sano oo siyaasadda aan ku jiray, 11 sano u dambeeyay waxaan ahaa nin ka shaqeynaya maslaxadda guud ee ummadda Soomaaliyeed, dib u heshiisiinta, nabadda, xalinta khilaafaadka. nin odayo maslaxadaas ka shaqeynaya ayaan ahaa. shirkan beesha Mudulood ani wuxuu ii yahay shirarkii aan soo waday mid qayb ka ah. ninaa mar su'aal la weydiiyey, waxaa la yidhi waxaad noo sheegtaa siyaasiyiinta ninka ugu afweyn, wax inuu qariyo rabay, waxna inuu sheego waa rabay. marka wuxuu yidhi niman yahow su'aal xumaad i weydiiseen ee waxaad rabtiin aniga hebel inaad iska hor keentaan. si dadban ayuu u sheegay. marka nin odayo oo Soomaaliya oo idin u dhaxeeya ayaan ahay. marka hadduu Ilaahay yiraahdo waxaan rabaa wax inaan hambeeyo ma rabi, wax inaan sheegana ma rabi. marka si odaydinimo ayaan lala hadlayaa. shirkan waxaan rajaynayaa inuusan noqon mid ku kooban danaha Mudulood kaliya, balse waa inuu noqdaa mid dhabarka ku qaada maslaxadda ummadda Soomaaliyeed. haddii uusan noqon ma noqonayo mid ma aragtay najaxay anigu ma aqaani. shirkan waxaa laga rabaa inuu ka shaqeeyo maslaxadda guud ee ummadda Soomaaliyeed. maslaxadda Mudulood waxay ku jirtaa nabadda iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed. daafurkii shirkan waxaa lagu sheegay baaxadda uu leeyahay beelweynta Mudulood. waxaa la sheegay inay Mudulood ay tahay qaran, sideeda ay qaran ku tahay. waxaa la sheegay taariikhda ay leedahay iyo waxa ay soo martay, ay ka soo qabatay difaacidda dowladnimada. haddiiba intaas ay soo martay, waa ku qasban tahay dowladnimada inay ilaashato. qodobka kale ugu muhiimsan oo aanan la xusin waxaa ka mid ah inta rag ooga dhimatay iyo dumar rag iyo dumar difaacidda dowladnimada waxaa ka badan inta aan la xisaabin oo wiiftada iyo muxuu ahaa Mudulood dhexdiisa oo iska dilay, iyo inta hoobiyaha habaabsan oo ku soo dhacay ayna dadku u xisaabneen. maanta Soomaali waxay ku kala maqan tahay habacsanaanta iyo tafaraaruqa beesha Mudulood.
waxaa maqli jiray mudulood waa imaana laakiin waa soo daaha mar hore la sugayay in mudulood ay midowdo ay mas'uuliyadda saaran ay qaadato haddana waxaa laga doonayaa inay mas'uuliyadda ay dhabarka u ridato ay qaado ay Soomaali isu keentaa ay farba farta ku xigta inay isku xirtaa ay raadisaa Soomaali inta ka maqan beesh iyada isku tilmaamtay inay tahay gogol inay tahay qaran Soomaaliyeed marka waxaan aaminsanahay inay qaadi karto mas'uuliyadda la saarayo iyadoo Soomaali ah mug leh iyo micno leh waa inay raadisaa walaalaheen waqooyi ayna keentaa waqooyiga waxay sugayeen mudulood oo midoowa waxay u maqan tahay intaas way ruux damaanad qaada loo baahan yahay muduloodna waa qaadi karaan damaanadaas ummad walbo khayraadka ay leedahay iyo deegaanada Ilaahay ku maneestay haddii siyaasad midaysan oo ma aragtay hagta haddiina lahaynin waxay micno leedahay ma lihin 30 sano la soo dhaafay dadka intooda badan markaan arintan aan ku guubaabino waxay dhahayaan inta badan siiba ganacsatada xaan ka dheefa waa dhamaatay nabadda dhulka in laga qaado way taasna intaasan uga baxaya sharafta iyo karaamada iyo kaalinta mudulood oo ku leeyahay ummadda Soomaaliyeed dhaxdeeda xoog iyo weerar kumaysan iman ee waxay ku timid wanaag alla ka cabsi nabad jacayl iyo Soomaalinimo ay ku timid hasa ahaatee hadda nama gaaraysa arintaas kaliya nuguma filno waa in la helaa wajahaad dhinaca loo socdo waa in la helaa taasna intaasan uga gudbaya horumarka mudulood waxaa ragaadiyey wada tashi la'aan loolan siyaasadeed iyo khilaafka gudaha Soomaali waxay ku maamahdaa in adeerka uu ka geeri naxay kama guya naxo loolanka waa furan yahay in la loolama waa jirtaa laakiin waxa loo baahan yahay siyaasad biseel iyo nidaam lagu xalliyaa khilaafka gudaha golaha la dhisaayo waa inuu yeeshaa marjac loo noqdaa shalay waxa ugu muhiimsanay daafurka markii la furayay in la yiri dulmidiid waa inaan noqonnaa waa sax laakiin su'aasha taagan dulunka aan diideyno waa dulunka annaka aan gudeen isku hayna miya dulunka aan dadka ku hayna miya dulunka nalagu haya miya mase waa dulunka Soomaaliya isku haysa